السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دوادا برنامج كان oo ku saabsan sooyaalka hardanka ama cadaawada u dhaxaysa Soomaalida iyo Xabashida ama Soomaalida iyo Itoobiya. Waxaa nasiib darro ah daawadayaal inaan maqalno had iyo jeer in colaadaas labadaas ummadood ama labadaas dal oo dariska ah ay bilaabmatay xilligii boqor Menelik oo Xabashida ka soo jeeda uu xukumi jiray Itoobiya, kaasoo lagu tilmaamo isla mar ahaantaas inuu ahaa aasaasihii dalka Itoobiya. uu ka hortiis aanu jiri jirin wax la yiraahdo dalka Itoobiya, balse ay jiri jireen boqortooyooyin ku koobnaa deegaamada Amxaarada iyo Tigreega oo la mid ah boqortooyooyinkii dhulka Soomaaliyeed ka jiray. balse run ahaantii saan tilmaamay arrinkaas isaga ah ku bilaabay falanqaynta inuu u baahan yahay sixid oo aana arrinku taagneen in cadaawada iyo hardanka labadaas dal aanu bilaabmin xilligii boqor Menelik, balse uu yahay hardan qoto dheer oo intaas ka weyn. xilliga ugu horeeya oo hardankaasu bilaabmayna lagu tilmaami karo inuu yahay xilligii Suldaan Sacdaddiin ama qarnigii 13aad ee dhalashadii Nabi Ciise. xilligaas oo ahaa sooyaal ahaan, qoraal ahaan marka dib loogu noqdo oo wax la tixraaco uu ahaa xilligii ugu horeeyay uu dhex maro Soomaalida iyo Xabashida hardan iyo loolan siyaasadeed iyo mid hubaysanba, iyadoo la ogsoon yahay in Suldaan Sacdaddiin oo xaruntiisu ahayd magaalada Saylac uu ku dambeeyay ugu dambeyntii inuu ku dhinto gacanta Xabashida, iyadoo ay Xabashidu soo weerartay Soomaalida, halkaana ee ugu dambeyntii gacanta ku dhigtay dhulkii Soomaalida iyo xaruntii Soomaalida iyo muslimkaba oo ahayd magaalada Saylac. Suldaankii Sacdaddiinna uu gacantooda ku baxay. xilligaasu waa xilliga ugu horeeya ee la tilmaami karo uu bilaabmatay cadaawada iyo isku dhaca hubaysan ee dhex mara Soomaalida iyo Xabashida. xilliga labaad wuxuu ahaa xilligii Imaam Axmed bin Ibraahim ama Axmed Gurey oo la ogsoon yahay muddo dheer, sanado dheer, inuu loolanka siyaasadeed ee hubaysan ee labada dhinac socday. xilligaasuna uu xilligaas ahaa uu ka horeeyay xilliga boqor Menelik oo isagana lagu tilmaami karo xilligii saddexaad, kaasoo mideeyay Xabashida iyo Tigreega oo ahaa asaasihii dowladda Itoobiya, oo isaguna dhankiisa 1905 kusoo duulay Soomaaliya lagana celiyay deegaanka ama magaalada Balcad, kaasoo ujeedadiisu ahayd inuu gaadho magaala madaxda Soomaaliyeed ee Muqdisho, halkaasna uu gacanta ku dhigo oo jaanis ka helo oo ugu abuuro xaaladda maanta taagan oo kale oo ah marin badeed dowladda Itoobiya ee uu asaasay. kadib isku dhici labaad iyo hardankii ku xigay kaas ama afraad wuxuu ahaa asaaskii dhaqdhaqaaqa daraawiishta ee Soomaaliyeed
uu horkacayay halgamaa maxamed cabdulle xasan kaasoo ay isku dhacyo badan dhex maray dhaqdhaqaaqii daraawiishta ee Soomaaliyeed iyo xabashida. sidoo kale aasaaskii dowladda Soomaaliyeed 1960kii markii la gaadhay sanadkii 1964 wuxuu ahaa dagaalkii koowaad ee dowladda Itoobiya ku soo qaado dowladda Soomaaliya oo taariikhdaasuna ay ahayd taariikhdaas iyada ah ee xadgudubka ah iyo duulaanka ah oo ka soo jeeday dalka Itoobiya. wixii ka dambeeyay dowladdii Soomaaliyeed iyada ahayd gaar ahaan la wareegtay taliskii la wareegay xukunka 1969kii oo horkacayay Generaal Maxamed Siyaad Barre oo noqday gunaanadkii madaxweynihii Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya. waa ka tabaabushaystay arrinkaas isaga ah xadgudubka Itoobiya iyadoo gunaanadkii la isku dhacay 1977kii uu dagaalkaasuna ahaa dagaalkii labaad ee dowladda Soomaaliyeed la gasho Itoobiya. dadyowga qaarkood oo Soomaali badan nasiib darrona ay qabaan aragti ah in ay Soomaaliya weerartay Itoobiya balse arrinku aanu sidaas u oolin loo dhigi karin. ee Soomaaliya wax duulaan ah aanay ku qaadin laga bilaabo 1974kii oo muddo 3 sannadood ah ee dowladda Soomaaliyeed macnihii la saan qaadaysay xaaladii siyaasadeed ee gudaha ahayd ee Itoobiya. arrinkaasna uu muujinaya booqashadii uu ku tagay madaxweyne Maxamed Siyaad Barre isagoo wata wafdi sare oo xubno ka ahaayeen golihii sare ee kacaanka ay soo booqdeen Itoobiya iyadoo ay taliskii Itoobiya ee dargiga militariga ee xilligaas isaga ee cusbaa uu hogaaminayay uu horkacayay Generaal Tafarre Banti oo markaas ka dhignaa madaxweynaha Itoobiya ee 1976 kula kulmeen magaalada Addis Ababa. ujeedaduna ahayd sidii labada dal la isugu soo dhaweyn lahaa maadaama ay Itoobiya qaadatay xilligaas isaga ah fikirka socialismka ama hanti wadaagga. Soomaaliyana ay fikirkaas isaga ah qudhiisa ku sugneed la isku dayay ayna ka timi aragtidaasu in Soomaaliya iyo Itoobiya ay isku soo dhawaadaan balse majarahaas isaga iyo rajadaas iyada ah uu jaray Colonel Mengistu Haile Mariam oo garabkii qonyar socodka ahaa ee maamulka Itoobiya markaas hogaaminayay uu macnihii cirib tiray oo Itoobiya ka dhashay wax la oran karo xaalad dagaal sokeeye iyo loolan siyaasadeed oo gudaha ah kaasoo gunaanadkii ugu dambeyntii saameeyay xaaladii cilaaqaadka u dhaxaysay labada dowladood oo kala ah Soomaaliya iyo Itoobiya oo gaadhay marxalad kama dambaystii ah aan ka soo noqod lahayn inay gaadho marxalad aad u xun. taasuna ay ku kaliftay in dowladdii Soomaaliyeed ama Muqdisho ay isdifaacdo oo ahaa weerar ka hortag ah oo ah waxa lagu magacaabo dagaalkii 1977. dowladda Soomaaliya xilligaas laga bilaabo
lasoo gaadho 1988 xaalad dagaal iyo colaadeed baa Ethiopia u dhaxaysay oo lagu soo afjaray heshiiskii isaga ahaa ee IGAD iyadoo la isugu yimid dalka Djibouti halkaasna lagu joojiyay xaaladii colaadeed inkastoo run ahaantii ay Ethiopia kaga baxday Soomaaliya ballantii iyada ahayd dhacdooyin siyaasadeed oo hubaysanna ee arrinkaas isaga ay soo yaaleed muujinayaan balse xaaladii isku dhaca weyneed oo laga bilaabo 1977 la soo gaadho 1988 halkaasaa la moodaa inay ku soo afjarmeen kadib waxaa la ogsoon yahay in dowladdii Soomaaliyeed ee dhacday dhicitaanka dowladda Soomaaliyeed ee dhacday dowladda Ethiopia aad bay ula saanqaaday aad bay uga faa'iiday iyadoo isku dayday inaan bulshada Soomaaliyeed hoggaan siyaasadeed iyo dowladnimo aanay u istaagin oo laga bilaabo 1991 faragelin qoto dheer leh ku hayay dalka Soomaaliya oo ka dambeeyay qaybinta ummadda Soomaaliyeed oo heer gaadhay inay haldoorkii Soomaaliyeed hadduu noqdo mid siyaasadeed mid ciidan mid nabadgelyo mid siyaasadeed guud ahaan ay gacanta ku dhigeen arrinkaasuna uu taagan yahay ilaa iyo maanta dhammaan daawadayaal dhacdooyinkaas iyaga ah aan si guud u dulmaray waxay muujinayaan xaaladda qotada dheer ee farangelinta iyo xadgudubka ee Ethiopia soo yaal ahaan ku haysay ummadda Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan dowladda Soomaaliya aanuna arrinku intaas ku koobneen ay la og yahay Soomaali galbeed xaaladda xadgudub iyo tacaddi iyo guumaysi ee ku hayso dowladda Ethiopia sidoo kale in ay dowladda Ethiopia kaalin weyn ka qaadatay inaan Soomaaliya iyo Djibouti aanay isku biirin oo ay Soomaaliya arrinkaas isaga ah iyadoo door bidaysa madax bannaanida dalka Djibouti ama gobolka Djibouti macnihii ka tanaasushay muujisay dabacnaan badan oo siyaasadeed iyo sidii uu dalkaasi xornimadiisa u heli lahaa kana jartay macnihii marmarsiyihii ee Ethiopia waday oo rabtay inay kula wareegto oo ku farageliso xadgudubna u geysato dalka Djibouti arrinkaasuna uu ahaa arrin Soomaaliya ee ka dambeysay dhammaan sooyaalkaas isaga ah daawade wuxuu muujinayaa in xadgudubka dowladda Ethiopia ama dalka xabashida ah inuu yahay mid qoto dheer leh oo qarniyaal badan soo socday laga soo bilaabo qarnigii 13aad balse aanu ahayn mid laga bilaabo xilligii boqor Menelik daawada dhageyste intaasaan ku soo koobayaa barnaamijka kan isaga ah ee soo yaalay waanigoo ah Khalid Xasan Yuusuf sidaas iyo kulan dambe oo wacan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu